السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتسلامتي نردي دمانتين كسر هذا مركز حسديني شراب. حسدينا الشراب ما أنت محين قادم دونا. ما أنت حسدينا الشراب محين قاعد دونا أو كبران دونا أو نوبلان دونا قيبتي إنترنت أيام ما تبرو نقول دوتها كسب سنة كمبيوتر. مركز هذا قيبت إنترنت وقيبت يقول همسن استعمال قوة بدن دنيا ما أنت كحسده. marka saad ogtihiin meelaha kale kombiyuutarada marka lagu dhigo waxa laga yaabaa maanta oo dhan in la idinku dawaqayo mouse-ka yare meesha yaala in la idinku dawaqayo wax kasta la socda arday oo mid hal mid baan siinaya muhiim ah hal point muhiim ah siinaya wax kasta wasada adigu isku barto wax kasta macalinku kaliya tilmaam buu leeyahay laakiin adiga maxaa laga baahan yahay waxa laga baahan yahay research inaad samayso baaritaan samayso inaad wax kasta baadho oo eegto oo tijaabiso waxaan wax ku cunaya ma laakiin waxyaalaha halista oo baad iska ilaalinaysaa talaabo kasta oo qaadayso inaad computer-kaaga data ka wada remove garayso waxyaalaha ka khalkhalgelinaya computer-ka baad iska ilaalinaysaa laakiin ha ka cabso wax kasta wad baadh saa doonta oo wad bahalka haddaad wadwadin practice ma samayn kartid imika tusaalahaan intan aan ku dhigay oo kale sideeda wadwad waa inaad maskaxda daalisaa maskaxdani si yar bay iskaga niyad jabtaa haddii tusaalahaan laba wax lagu yiri celiyo iska niyad jabtaa way nacdaa markaa ka adkow oo yaanay isadkayn maskaxdaadu yaanay dee ka cararin wax kastoo lay fududaan markaa haddaba ardayga qaybta internetka haddaba soo noqdo qaybta internetku waa qayb aad u ballaaran oo computerka ku saabsan oo ka mid ah internetka dabcan computer kaliya lagama galo waxa laga galaa mobile waxa laga galaa laakiin halka ugu muhiimsan ee internetka gebigiisaba halka laga sameeyay waa computer way halka samaysayba marka heer satellite lagu kiciya computerka laga gaaro min bilow ilaa heer satellite lagu kiciyo marka arday wax ciyaar ma wax ku soo koobiyo bilna ba laakiin inta muhiimkeen ugu baahanay macluumaadkeena iyo qof kasta oo doonaya inuu computer isticmaalo oo ku shaqeysto hawlihiisa ugu qabsado xafiiskiisa tahay iyo hadduu xafiis uga shaqeynayaba tahay inuu ku barayno kooraska haddaba qaybta internetka maanta bal aad u falanqeyn doonaa inaga oo qayb istaagi doonaa oo waxyaalo badan oo internetka ku saabsan qaabka loo isticmaalo kaga hadli doono koorsadeenani marka casharkii ugu horeeyay sectionkii labaad ku qaadanayay internetka marka wadina wada socon doontaa insha Allah. عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي وسلامتين كسر هذا حيسديني شناد صار له ساعتين أو أي إنترنت كهذا لأنه شقدي سي استعمال كيسبة مركز صدو دار كيسان أرضي إنترنت كسدو دوكتي ومش أو بلارن كمبيوتر كا مركز صدو دوكتي ومش أو مهم سن قفل بقى واستعمال كده وبهني هاي وايد إنترنت بينكو ده كنا مركز أرضي هل كان هو سن رواينا اللي نشرحه internetka maxaa lagu galaa internetka waxa lagu galaa wax loo yaqaano browser wax loo yaqaano lagu galaa maxay noo sahlayeen internetka galno browser bay noo sahlay browserku muxuu yahay browserku waa kan iidi ku taalo oo kale kaas oo kale ayay noo sahlay programkan oo kale ee iidi ku taalo waa browser internetka laga galaa sidoo kale google chrome-ka calaamad daayir buu leeyahay oo google chrome baa la dhahaa oo isagana shirkadda google baa leh oo isna internetka inuu aynu ka galno inoo sahla hadaba maanta waxaynu baran doonaa google chrome-ka sida loola soo dego waayo dad badan baan ugu jirin oo computerka markay soo iibsadaan google chrome-ka maqan google chrome-kuna waa waxa ugu muhiimsan ee lagama maarmaanka u ah in aad internetka isticmaasho waayo kani wuu culus yahay iidaasi way culus tahay oo had iyo goor lama isticmaalo dadku way ka cawdaan marka chrome kaasa ugu muhiimsan oo la isticmaalo chrome hadaba hadaan computerka google chrome ku jirin sideed ugu shubaysaa baan hadaba maanta idin tusaya insha Allah xiisadeenan hore hadaba si aynu google chrome ugu shubno ugu hore waxaan soo furaynaa iidaasa kuugu jirta sida naturalka caadiga iidaasa kuugu jiraysa mobile computerkaaga iidaad tagaysaa soo furaysaa computerka marka la keeno iidaasa ku jirta browserka iida la socda marka maxaynu ku qoraynaa halkan waxaan ku qoraynaa google chrome google saadalkiisa halkaas searching-kiina ku qoraynaa google google chrome saadalkiisan google chrome saasay qorantaa google chrome download baad raacinaysaa haddana wata google chrome download baad doonanaysaa
kadibna waxaa kuu soo baxaya boggan oo kale kuu soo baxay oo waa uu ku caawinaya si aad ula soo degi lahayd laakiin ka saxdi waa kan Google Chrome web browser weyn waa kaa wey kii hore caawimaad buu ahaa marka kaa labaad markaad doorato waa kan noo soo baxay marka maxay taabanaa halka download ku taalo download Google Chrome kadibna waxaad oranaysaa accept install baad oranaysaa computerka ku install gareynaya isla markaaba Google Chrome oo kaa u download gareeyay maca install ku raacinaya accept to install baad leedahay sababta arkaysan ardayda wata muxuu yidhi marka maxaad sameynaysaa RAM baad oranaysaa ama save markaad tiraahdo kadibna muxuu oranayaa uu ku download gareynaya sababta arkaysan arday computerkeenu ku dhacaya running buu ku leeyahay security scan marka sababta arkaysan uu soconaya kadibna uu inoogu dhacaya computerkeena waanu install gareynaya marka markuu saa ilaaho RAM baad taabanaysaa halka ugu tala markuu kugu dhaco kadibna haddii uu halkan kaaga soo bixi waayana halka yar inta saddexda dhibcood soo furto haddii halka kaaga soo bixi waayo saddexda dhibcood baa la furaa kadibna downloads baa laga soo doortaa laga soo galaa marka iminka saad arkaysan RAM markaynu nidhi RAM buu haddayna weydiiyo haddana mar labaad RAM taabanaysaa kadibna wuu inoogu dhacayaa computerkeena oo uu isku install gareynaya marka dambena aakhirka toos buu ku dhacayaa computerkeena marka saad arday arkaysan halkaas saddexda dhibcood baa laga soo furaa haddii aad halkan ka weydo san marka hore idin sheegay downloadska meelaha laga soo saaraa haddii uu kugu dhici waayo meesha ood ka weydo downloadkii filekii aad la soo degtay waxaa laga eegaa halkan ayaa laga soo saaraa download saad arkaysan developer ama halkanba ma ahaane waxaad ka eegaysaa folderka downloadskaad ka eegi kartaa halkan intaad soo furto fileka ayaa downloadska ka eegaysaa halkuu ku dhacay haddaad program ku rabto downloadkaasaad soo furaysaa programka halkuu ku dhaco halka marka ardayda saad arkaysaan boggan baa inoo soo baxay oo programkii tusaale ahaan saad arkaysaan boggan baa inoo soo baxay waxaa siina weydiiyey maxaa taabanaysaa yes baad leedahay inoogu install garee baad leedahay marka ardayda kan horu igu jiray laakiin idinkaan niyara rabaa inaan niyara tuso qaabka loogu shubayo si aad ula soo degtaan markasta programka marka waxaan u wadaya marka installationkii wada marka waxaa wado waxaa haddaba faraha ma taataabsinaysid kama goynaysid saasuu iskaga soconaya maanta oo dhan connecting downloading waxaas u wadaya marka timekaasi markuu dhammaado already computerkaaga automatically buu ku dhacayaa Google Chrome kuna halkan buu isa soo dhigayaa sidoo kale wuxuu isa soo dhigayaa halka banaankaasna uu is dhigayaa banaanka halkaasuu is dhigayaa Google Chrome ku sidoo kale haddaad halkaa ka weydo waxaad ku qori kartaa halkan baad ku qoraysaa intaad soo furto star ayaad Chrome ku qoraysaa Chrome ama Google baad ku qoraysaa Chrome sidoo kale searching ka baad soo furaysaa searching ka markaad soo furto Google baad ku qoraysaa Google oo kaas soo baxayba Google Chrome kaasaad soo furanaysaa marka already marka aniga uu igu jiraa installation uma baahnin waan ka jarayaa marka already waa ka igu jira aniga kadibna waa kan ii soo baxay tusaale ahaan waan shiday oo programkii uu ii soo degay hadda kadibna maxaa talaabada koowaad aan qaadaya maxay tahay haddaba ardayay sharxaad baan ka siinayaa guud maanta horta internetka saad la wada socotaan halkan waxaa la yidhaahaa waxbaa lagu qoraa halkan waa writing weeyaan wax kasta oo aad qoraysid rabto inaad internetka ka baadho waa halkaad kaga searching garaynaysaa waa halkaas sare weey qaybtaas leadkaa boodboodaya waxaad doontaad ku qoraysaa hees baad ku qoraysaa quraan baad ku qoraysaa saad doontaad u gelaysaa marka wax kastoo rabto inaad baadho halkaad kaga qoraysaa waa halkaa weeyaan arday marka maxaa kale iyaduna kuugu xigtay meeshan yaala waxa kale meeshan yaala waxa weeyaan waa calaamad daayir maxay tahay refresh markaad shaygii rabtay inuu dib u wareego uu kaa cuslaado aad rabto tusaale ahaan iminka Soomaali tusaale ahaan markaad Soomaali oo kale ku qorto tusaale ahaan Soomaaligii tusaale ahaan saas oo kale qoraaladaas ku soo baxay saad arday arkaysaan markaad rabtaan inaad dib u wareejisaan oo reload garaysaan oo refresh garaysaan uu kaa cuslaado oo kale calaamada yar baad taabanaysaa faa'iidooyinkaas leedahay hadduu kaa cuslaado oo kale inaad shaygii aad dib u reload garayso ama cilad uu kaa yeesho baalku marka taasi faa'iidadaas leedahay fallaadhahani maxay yihiin fallaadhan midigtu waa hore u socotana waa dib u noqo oo wixii aad ka timi baad ku noqonaysaa taatanna wixii aad imika ka timi baad ku noqonaysaa horaad u soconaysaa wax kaa horeeya hadduu jiro horaad u soconaysaa
tanna waa back oo waa dib uga noqo waxaan imika taaganto halkan markii hore ka bilownay baan ku noqonaysaa darkiiso marka arday maxaa kale meesha noo yaala hadaba waxa ugu muhiimsan iyadana sidoo kale aynu uga baahanay internetka waxa weeyaan waa website-yadii waa waxaas way noo soo socdaan ka warwarin insha Allah marka maanta waxa ugu muhiimsan aynu qaadan doonaa waxa weeyaan website-yada tusaalaan bbc.com oo kale marka bbc.com ku qorto oo kale website-ka bbc baad markaaba tagaysaa sabab muu tagay marka sababta ay bbc.com u tagaysaa maxay tahay waayo linki baad dooratay website baad booqatay website marka lagu leeyahay gal website-ka magaciisa dalka ku qoraysaa isla markaaba waxa soo boodaya website-kiiba soo boodaya ardayda saada kaysaan imika tusaalahan bbc bay noo soo baxday tusaalahan imika haddaan halkaa taabto oo aan ku qoro caalin.com haddaan ku qoro caalin.com haddaan ku qoro markaba caalin.com website-kiisa bay noo soo boodaya arday badan baa i weydiisay si ay uga faa'iidaysatay bal maantaba arday badan baa istiraha mala caalin.com lagama helo mala computerka marka website-kaygu baad ku qoraysaa halkaa caalin.com isla markaaba waxa ku soo boodayaba website-kaygu baa soo boodaya caalin.com marka sadarkiisaan waa kan arday waata sadarkiisaan exactly kan waa internetku ka mid yahay website-dadu waa kuwan marka waka any website aad u baahan tahay baad ku qoraysaa wax kasta oo aad u baahan tahay ka search gareyn kartaa waa youtube-kaad ka geli kartaa youtube.com baa la yidhaha youtube-kan youtube.com wax kasta oo aad u baahan tahay internetka waad ka helaysaa wax kasta waad weydiin kartaa anything wax kastoo computer ku saabsan xataa arday waad weydiin kartaa waxaa kaloo idinka faa'iideynaya waxay tahay youtube.com markaad tagto waxaad weydiin kartaa anything you need waxaad u baahan tahay weydiin kartaa hadday noqoto inaad weydiiso cilmiyada kale hadday noqoto tusaale ahaan computer bayn ku qorayna computer maadaama computer arday dhiganaysana sorry computer si qaldan qoray iyo baa ka tagay computer markaynu ku qorno sadarkiisaan arday waa computerkii buu ku baraya sadarkiisa waa kan computerkii haddaad waxyaalo kale oo intan dheeraad ah intan idin dhigay dhaafsiisan aad rabtaan computerka barashadiisa youtube baad ku gelaysaa waad ku qoraysaa wax kastoo computerka ku saabsan waad ka baahan kartaa wax kastoo u baahan tahay ingiriisi inaad ku qortun baa kaaga dhiman tusaale ahaan what is the computer baad leedahay ingiriisi inaad ku weydiisun baa muhiima waayo luqadeenu badanka dadkeenu dad youtube wax soo geliya maaha oo culumta faa'iideeya laakiin wax kastoo u baahan tahay waad ku qori kartaa what is the computer inaad ingiriiska wax sida wax loogu qoran baratun baa muhiim wax kasta maanta internetka ka helaysaa arday faa'iido kasta laakiin af Soomaali wax kugu fahansiinayaan ay lahayn marka computerka wax kasta oo computer ku saabsan wixii soo dhasaad ogaanaysaa u daawan kartaa u helaysaa marka faa'iidadan imika idinku sharaxaya youtube-ka wax weeyaan inaad wax weydiisaan oo culumta ku jirta wax kasta uga baahantiin aad weydiisaan youtube-ka si aad uga faa'iidaysataan ayaan rabaa waa youtube-ka waa meel ballaaran oo wax ka faa'iidaysan karto sidoo kale caalin online waa meel ballaaran oo wax ka dhigan karto sida koorsooyinkaas oo dhan marka arday inta hadda kaga imaado website-yada sida loo galo iyo waxyaalaha xiisadeenu isaanay noogu sii dheeraan halkaas ku joojinaa insha Allah tan iyo inta ku kulmi doono xiisadaha soo socda oo aynu ku qaadan doono waxyaalo badan nabaday